أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام bulshooyinka Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan iyo waqtiga soo aadna daawanaysaan waxaan mar kale idinku soo dhaweynaynaa shabakada Tawba iyo muuqaal cusub oo insha Allah ta'ala aan si kooban ugu sheegi doono waxyaabaha aan halkaan idinku soo gudbin doono. muuqaalkii ka horreeyay dabcan wuxuu ahaa furitaan ama iftitaax walow fadro aanan ugu talagalin oo xoogaa sababa ayaa iska jira in naga gashay oo labada isbuuc camal ay u dhaxaysay. hadana insha Allah hadda wixii ka dambeeyay muuqaalkan wixii ka dambeeyay aan soo raacin doonaa. intaan mowduuca u gelin waxaan rabaa fariin yar oo aan rabo inaan soo laalaabin ku dhex daro fariintaas oo ah haddii muuqaalkii inagu aan waqti badan iyo juhdi badan iyo maaragtan dadaal badan aan ku bixinay aan ku helno xoogaa yar oo ajri iyo xasanaad Ilaahay naga siiyo adiguna waxaas aan juhdiga iyo waqtiga badan inagu aan gelinay aan ku helnay ayaad si fudud ku helaysaa haddii aad share garayso haddii aad dadka kale la wadaagto xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee imaam Tirmidhi imaam Ahmed iyo qeyrkood bay warinayeen wuxuu ahaa in daalu ala alkhayr ka faa'ili oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam qofku haddii uu qof kale walaalkiisa khayr tusiyo wuxuu la mid yahay yani isagoo sameeyo lama oran qofkii khayr sameeyo lama oran taas waa baab kale marka qofkii qof kale walaalkiisa khayr tusiyo wuxuu la mid yahay isaguna khayrkii uu sameeyo oo kale marka insha Allah ta'ala waxaan idinka rajaynaynaa idinkana codsanaynaa wixii aan idin soo gudbino inagu dabcan waxaan sheegnay oo aan muuqaal horan ku sheegnay haddana sheegayna in meeshaan waxaan adduunkeena aakhiradiina khayr u ahayn aan lagu soo gudbin doono marka insha Allah wixii aan idin soo gudbino oo khayr ah oo wanaag ah inaad dadka asxaabtiina aad la sii wadaagtaan ayaan idinka rajaynaynaa idinkana codsanaynaa haddii aan usoo laabto mowduuca laba su'aalood oo insha Allah mowduucan ku dul wareegsanaysa oo adigaba isweydiinaysa ayaan isku dayaa inaan si kooban uga jawaabo labada su'aalood oo ah meeshaan maxaan u furnay maxaan ku soo gudbin doonaa iyo su'aasha labaad oo ah yaa soo gudbin doona wax kasta oo aan meeshaan ku soo gudbinayn yaa soo gudbin doona marka labada su'aalood ayaan isku dayaa inuu mowduucaygu soo koobo su'aasha koobaad oo ah meeshaan maxaan ku soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala sidaan rajaynayno ku dadaalayno ilaahayna aan rajaynayno noo aqbalo meeshaan waxaan rabnaa inay noqoto hoyga tacliinta iyo wacyigelinta sida slogan-ka aragtaan tacliintu waa horumar kasta furaheeda waa yani nolol kasta horumarkeeda haddii aan doonayno furaheeda waa meel yani tacliinta looga marmaayo ma jirto iyo waxbarashadii cilmiga marka cilmiga oo laf dhabarka nolosha bini aadamka ah ayaan fududeyntiisa iyo horumarintiisa iyo faafintiisa aan kaalintan ka qaadanayno haddii Ilaahay yiraahdo inagoo isticmaalayna siyaabo kala duwan qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun qof wax bartay iyo qof aan wax baran sinaba kuma sinna marka cilmigu waa meel kasta furaheeda culimadu waxay dhahaan man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirata fa alayhi bil ilm wa man aradahuma ma'an fa alayhi bil ilm qofkii adduun doonaya oo adduun sharaf iyo karaamada doonaya waa inuu wax bartaa qofkii aakhira sharafteeda iyo qiimaheeda doonaya waa inuu wax bartaa labadaba qofkii doonaya waa inuu wax bartaa marka cilmigu waa laf dhabar waa furaha meel kasta idan cilmigaas faafintiisa iyo horumarintiisa iyo fududeyntiisa kaalintan ka qaadan karna ayaan ka qaadanayna waxyaabaha aan u soo istaagnay aan isku hawlayno ayuu ka mid yahay inagoo isticmaali doono insha Allah cilmi baaridayaal iyo maaragtaanay duruusta xana oo maadi iyo diiniba leh inagoo sidoo kale isticmaali doono tartamo falanqeyno iyo doodo cilmi ah iyo siyaabo kala duwan aan tiro lahayn qodobka labaad ee wacyigelinta isna waa qodob laga marmaan u ah horumarka iyo hiigsiga waa qodob bulshadii horumar doonaysa ay laga marmaan tahay inay yani kaalin muhiim ah ay siiso xilligan haddana waxaad moodaa in baahidiisa ugu daran ay taagan tahay maadaama dadkeena Soomaaliyeed boqolkiiba 75 la sheegay in dhalinyar yihiin haddana dhalinyartii waxaad arkaysaa waxyaabaha ay ku mashquulsan yihiin waxyaabaha aan fiicnayn inay u badan yihiin oo social media uu la sii tagayo marka yani mustaqbalkeena 50 sano iyo 100 sano ee soo socota waxa jaangoyn kara sida dhalinteena u taalo sida mustaqbalkeena u oolaanayo waxaan ka qiyaasi karnaa dhalinyarteena sidee u korayaan sidee ay wax u baranayaan sidee u yaalaan marka haddaad yani fiiriso dhalinyarta waxyaabaha xilligan social media baa la sii tagay waxyaabaha xilligan yani dhaqamada qaabka daran ee dhex yaala oo aad u badan yihiin marka wacyigelin zaa'ida bay u baahan yihiin waxaad moodaa social media xataa inuu waxbarashadii ka saameyn badanayo goobaha waxbarashada yani waxaad arkaysaa wiilka social media ka dhex yani neekanaya ama dansiga u dhex ciyaaraya oo TikTok iyo ka dhex neekanaya jaamacadu dhigtaa ama iskuul u dhigtaa waxaad arkaysaa qaar xataa iyagoo uniformkii wada soo duubay iyagoo dansi ciyaaraya class-kii ku jira marka social media inuu ka saameyn badanayo baad moodaa goobihii waxbarashada idan
sida waxbarashada loogu baahan yahay moodaa marka in wacyigelinta ay iyadana muhiim u tahay. marka waxyaabaha aan culayska iska saarnay, waxyaabaha aan mas'uuliyadda iska saarnay insha Allah aan xooga saari doono ay ka mid tahay wacyigelinta bulshada, maadaama aan u aragno inuu yahay qodob lagama maarmaan ah oo muhiim ah, qodob lagama maarmaan u ah waxbarashada iyo nolol kasta. qofku wax barashadiisa wax macnaa ay sameynayso ma lahan haddii uusan waxa uu baranayo qalbigiisa iyo attentionkiisa u soo jeedin. marka qof page kale u daaran yahay oo kalaaskii dhex fadhiya laakiin ka fikiraya filimkii xala uu daawaday iyo musalsalkii xala uu daawaday iyo ciyaarihii waxa ka fikiraya waa sida dhalinyarteena ay u badan yihiin maanta. qof saa ka fikiraya waxa uu baranaya dhowta shahaado unbuu qaadanaya, laakiin wuxuu noqonayaa de qof yacni bilaa dhuux oon cilmiba gudihiisa ku jirin oo shahaado un wata. marka waa waxa kaliya loo baahan yahay marka wacyigelin waa muhiimadda ay leedahay qofka inuu qalbigiisa ugu soo jeesto waxa uu baranayo. qof aan attentionkiisa soo jeedin wax la bari karin muhiimadda ay leedahay waxa ku fahmaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waxyiga lagu bilaabayay qaraa'ibta iyo cajaa'ibta iyo mashaqaadka la marsiiyey. marka yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam cilmi mutaxan qalbigiisa laguma shuban, iyadoo ilaahay si kasta suurtagal u ahayd oo uu awooday ilaahay jalla jalaaluhu inuu habeen inta seexdo nabiga calayhi salaatu wasalaam subaxdii soo kaco soo quraan yaqaan. haddana si kastoo suurtagal u ahayd ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu isticmaalo farsamo ama sunan inagana lagu fahamsiinayo qof kasta ee sunnadaa la timaada inay quwatu dabtigaas nabiga uu yeeshay ay yeelanayso. nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni qaraa'ibaa la tusay. waxaa ugu horreyn lasoo hor istaajiyey shakhsi aanu horey u arki jirin, noolayaashii iyo creatorsku arki jira aan ka mid ahayn. malaku jibriil ayaa fariin loogu soo dhiibay. marka shakhsi aanad arki jirin oo kugu cusub fariinta uu kuu sidaana fariin weynay noqonaysaa. intaa attentionkiisa lagu soo jeediyo way ku filnayd, haddana intaa looguma ekayna waxaa la yidhi iqra', iyadoo ilaahayna uu ogyahay malaku jibriilna uu ogyahay wax yacni uu akhriyaba inuusan aqoon shakhsigaani oo yani uu yahay dee ummi sida hooyadii u dhashay. haddana waxaa la yidhi aqri si yacni uu u raadiyo bal wuxuu aqriyo hadduu iska waayo ugu soo jeesto waxaan loo sheegayo. ma ana biqaari inuu waxaan aqriya anigu garan maayo. marka intaa looguma ekayna mashaqaa lasii marsiiyey. haddana iyadoo attentionkiisa in lasoo jeediyo ay labadaaba ku filnayd, haddana waa lasii dhibaateeyey. فأخذني فقضني حتى بلغ مني الجهد ونبي عليه الصلاة والسلام هو قبطي وسكو كيجي جبيه إلى أو دبتو هذا وسيداي هذا مركا لو يرى أقرأ سيدي وقالوا إمرسي مركي أفراد بالغو يرى اقرأ باسم ربك الذي أسقى مركز وما ركتانيش أن أقرأ مركز كذب وحو يعني كفائدة نبي عليه الصلاة والسلام يعني مشقلاس قرائبتاس لا تصي وحيابها لقى فائدة علماء وحيشة يعني كتمت فائدين كيمة وحكمت نبي عليه الصلاة والسلام سورة هدي الجدول دجية قرآن waxaa suurtagal u ahayd inuu akhriyo isla markii yani suuraddii inuu isla markii ka go-o waxyigu ka dhamaado isla markii inuu akhriyo ayaa suurtagal. albaqara oo dhan haddii loo bilaabo loo dhameeyo wuu akhri karay nebigu calayhi salaatu wasalaam. uma baahnayn sidan oo kale inuu xifdiyo ku celceliyo xasan uma baahnayn. yani xaggee ka timid sababta ay ku dhacday waa mucjiza min allahi, laakiin asbaabo iyo sunan ay ku imaan karto wax uuna aan uga heli karna nala fahamsiina. wa ficlanna inaga laftirkeen waan aragnaayo. waxaa laga yaabaa markaad yarayd aayad maalin macallin kugu garaacay dugsiga ama cashir lagugu garaacay ilaa hadda inuu kaa hor muuqdo usan kaa lumin, yani qalbigaaga uu kusii jiro. sababtu maxay tahay? waa munaasabadda markaas ay kugu gasho aayaddaas ama cashirkaa kugu galaa munaasabad ka duwan kuwii hore ahayd, xaalad ka duwan, qalbigaagu soo jeeda. marka nabiga calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxay dhahaan intaasoo mashaqaa waxaa loo marsiinaya oo qaraa'ibtaa loo tusayay bis in qalbigiisa la soo jeeday. meesha la dhigi doono sha'nigan weyn meesha la dhigi doono in mashquul kale oo dhan laga ilaaliyo. marka qur-aanka lagu dul dejinayo xataa nabiga calayhi salaatu wasalaam waa laga ilaalinayay, waa laga reebayay in uu qalbigiisa yani wax yar si uusan u mashquulin inuu qur-aanka ka daba akhriyo. malaku jibriil waa laga ilaalinaya. laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih ina calayna jamcahu wa qur'aanahu faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu. carabkaaga ha dhaqdhaqaajinin oo qur-aanka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka daba akhriyo ayuu isku dayayay marmarka qaar si aanu uga fakan. marka degdegina lagu yidhaa qur-aankaaga xarabkaaga dhaqdhaqaajinin, innaga qalbigaaga ku jamcinayno qur-aanka, innaga qur-aanka ku akrinayno qalbigaaga ku jamcinayna. markaan akhrino kadib adugu akhri. intaas waxaa loo diidaya haba yaraatee mashquul inuu galo. qof kalaaskii kuu dhex fadhiya laakiin musalsal iyo filin iyo social media wacdari oo xalaka dhiga waxaas ka fikiraya see marka waxbarashadiisu noqonaysa. marka waa lagama maarmaan, waa aada qodob muhiim u ah in yacni bulshada wacyigooda lasoo jeediyo. waxbarashada kaalinta la siiyo kale in la siiyo wacyigelintana waa qodob lagama maarmaan. aan kula talinayno qof kasta iyo goob kasta ee waxbarasho iyo meel kasta ee bulshada laga hormariyo ee bulshada laga hago in wacyigelintu ay kaalin muhiima ku yeelato. innaguna insha allah mas-uuliyad ayaan iska saari doonaa, waana aan maaragtaan ka qayb qaadan doonaa
waxyaabaha koorka noo ah ayayna ka mid noqon doontaa. Midda kale su-aasha labaad waxay ahayd yaa soo gudbin doona hadday tahay wacyigelin iyo hadday tahay tacliinta iyo waxbarashada iyo cilmiga yaa noo soo gudbin doona. Fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna ilaahay leeyahay. Marka inaguna cid kasta ee aqoon u leh, qof kasta ee yaqaana ayaan insha allahu aan u daba fariisan doonaa. wax kasta iyo mowduuc kastaan soo gudbanayno qofkii ehelka u lahaa ee aqoonta u lahaa ee ay ahayd in wax laga weydiiyo ayaan insha allahu aan u daba fariisan doonaa. marka insha allahu tacaala intaas ayaan kusoo koobaya mowduucan. duruusi aan ugu talagalna halkan inay ka baxaanna waa insha allahu noo bilaaban doonaa biidni illahi albaari. insha allah darsiga ugu horeeya wuxuu noo noqon doonaa dowrada aan u bixinay dowratu tagyiir wa tarbiya. maxay ka hadli doonaan, muxuu ku saabsan yahay, yaa soo jeedin doona, muuqaalka ugu soo horeeya oo isla duruustaas muqadamo u noqon doona ayaad insha allahu ka daawan doontaan. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.